nabadgelyo waxa ugu fiican nabadgelyada naftaada ay degantay xasiloontay aan warwariyo walbahaar aanu ku haynin aan buufis kugu dhicin ilaahay wuxuu leeyahay kuwaasi amni daakhiliya amni nafsiya iyo amni khaarijiyaba way leeyihiin psychologically bay dad degan yihiin xasiloon qofka alqadaa walqadar rumaysani duniduba problem kuma hayso maadaama uu rumaysan yahay isaga waajibaadkiisa saarana inuu la yimi qadaha iyo qadarka ilaahina subxaanahu wa tacaala in rabbi maamulo qofka rumaysan dunidani inay ilaahay gacantiisa ku jirto isagu uu maamulo dhib kuma hayso marka lan yusiibana buu taagan yahay waxba na asiibi maayaan ilaahay intuu noo qoray mooyaane idan waa mutma'inu lqalb ilaahay wuxuu ku tilmaamay wahum muhtaduun iyagaana hanuunsan سأوجد بقى إلهي القرآن كوحك التلمامة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى أنا هنون كيغا سعيد الراعد رب إليه سبحانه وتعالى لا يضل مظلمه في الدنيا ولا يشقى مكدد مبا إلهي لي كدد يدبنا ما قبصته واقف قرنيا وحاونو لي قرنيا ماشا وكصعده garanaya aakhirada dambaysa garanaya طريقه mar ilaha qofka binaadamka haddii inta la qaado saxaara cidlaa lagu dhigo waan tilmaan balahayn baad isku daba wareegi dhanaad socota garamaysid way xagaana ciidun baa xigta xagaana ciid baa xigta dhan walba ciid baa ka xigta waa saxaara aan lahayn tilmaan waxaad calaamatul huda aan wadanin qofka binaadamkii markuu diin la ayahay noocaas وقف سحارة تاجن نولولات وأن قرنين محو النوري محو هالكن كقبانية دوني ذكر كده يدعو الصلاين يسا بسقيمات كل هذا حاضر النوشة يدات قرن ويدو تيهبات كسوغانت إلهي وحكى القرآن كقط المام إيمانك أي هداية سيني كان ين حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلهي وحلي عدي عمل وراكسن سميسة لبي يد دقمتكو دوربها هذا جندر كيسوح دورها النوضة وهو مؤمن إستغى مؤمن عمل صوبا أي سبيه إستغى مؤمن كإلهي وحكور دارنا فلنحيينه أدوات التوكيد بالسوق لام ينون فلنحيينه نولينه أو نولينه بإلهي ليه حياة طيبة نولل في عنبا نكان نولينه بإلهي ليه سبحانه وتعالى نولش في عني سيدي دبا ما هو حق عنت بني آدم كوتشيره how much you have intaad gacanta ku haysataa ma aha nolosha fiican waxa weeyaan intaad iimaan haysataa intaad degan tahay intaad nolosha xasilooni ku qabtaa intaan warwariyo walbahaar ku haynin intaad psychologically qof degan oo xasiloon tahay saxaabadii nabi maxamed waxay noolaayeen iyagoo qaarkood wax la cuna baan haysanin bal nabi maxamed baan noolaa axadu saxaaba baa nabiga u yimi وقاعد عبانية واختيادي هراي نولش وقاد كيد أي هجرودين مركز بيرك مرضى كقاضي استقر دقح كحدا نبينا عليه الصلاة والسلام بيركو مرضى كقاضي وحوتو سي استقر الله برنا حسنا حدني والنبي محمد والله برنا حدا قاعد دراديد لكن نولش رسول الله صدر تهليه يبوها نولش قف مطمئن كوابوها نولش الدوما دتكي وحكى بدلي قادة وها عدان حصلونيني وحما بدشو إلهي وحكوت المام يكوى كاني إيماني عمل صالح عدي لقهلا نلال طيبة أيوليه عدي لقوى يا يد محيلا ذي إلهي بوحلي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري أنا حسكيها عدة كتشي ستبا إلهي إليه سبحانه وتعالى فإن له معيشة ضنكا نولا العريري يبولي
nolol cidhiidhiya nolosha cidhiidhigii waa maxay waa in bini aadamku maalan inuu geerida nolosha ka jeclaado isagoon wax ka horreeyana garanayn ka warran maanta adduunka aynu ku noolahay siiba western society-ga oo wax haysta dhaqaale haysta dadka ugu badan ee istilaa waa tabaqada sare maaha tabaqa alkaadixa wax ma haysatada maaha طبقة ugu badan ee suicide-ka samaysa waa injineerada dakaatirada looyarada iyo waxa ka sii sareeya طبقة الوسطى middle class-ka iyo inta ka sareysa istisha bale waxa la yiraahdaa dawladda Yurub ka midaba waxay garan weyday dadku maxay isu dilayaan maxaa nolosha loo nacay qof bini aadam inuu geerida nolol ka doorto waayo tan u nacay sugan meel kalena wax ku ogeyn waxay dhaahdeen waxaynu u baahanay si bal mushkiladan xalkeeda loo raadiyo in dadka questionnaire la siiyo oo la weydiiyo qof waloo istilayaaba sababta uu isu dilayo xoolahan iyo deymahan lagu lahaayo waxa dhaqaalaana si xal loogu heli karo dadka hal la weydiiyo bay dhaahdeen questionnaire hal la weydiiyo maxay isu dilaysaan laakiin see loo garanayaa de ka istilaya kaan istilaynin dawladdu go'aan bay qaadatay inay iyadu samayso meel la isku dilo baarlamaankii dawladda wuxuu qaatay in la sameeyo dawladdii waxay qaadatay meel la isku dilo inay dawladdu furto oo qofka lagu caawiyo inuu isdili karo lagu caawiyo qaabka la isu dilay ugu fudud inuu maro laakiin ay ka horeyso markuu qofku yimaado questionnaire in loo dhiibo laga qaado bal waxaan uu ka fakarayo iyo sababta keentay inuu istiliyo waxaan in laga buuxiyo loo caqli celiyo haddii uu aqbali karayo in la yidhaahdo war noolo waa dhimanin hadduu se diido loo sahlo sida ugu fudud ee markaa nafta uga bixi karto ee ugu alamka yar ugu dhibta yar leh inuu isu dili karo dawladdu meeshii bay furtay questionnaire-radii baa la buuxiyey dadkii baa waday dadkii waxay noqdeen tiro aanay dawladdu filaynin waddankiiba qayb dhan oo ka mida kuyuu u gashay masalakhay dadka lagu biraynayay meeshii dadka lagu gowracayay kuyuu baa loo galay dabeetana dawladdii way gilgilanto dib baa loo fadhiista waxaa la yidhi dhaqsa ha loo xidho wixii dhimanaya ha dhintaane waxba yaan kuwa shaneer dambena la weydiin waay dadka kani iyagoo dhaqaale haysta oo tujaara oo injineera oo maxaa la yidhaha looyara oo dhakhaatiira oo hanti leh oo aqoon leh oo laga yaabo waddankooda qaadada hogaamisa in badanoo ka mid inay yihiin waay ay isu dilayaan ama ay u jecel yihiin inay nolosha ka baxaan oo draggaasi cabbaan waxay leeyihiin alxayaat ayiba dunida bay leeyihiin dadka isugu isdil yar ee la hayo waa dadka muslimiinta ah recordkoodu waa below zero waa waxaan jirin buu ku dhow yihi إلهي بأو بلن قاضي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة بإلهي كي كتشستنا إلهي وحلي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى نولا العريد يبال أتلماما وإلهي القرآن كوحنا أتلماما ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلهي حسكي ساب بنادم كقلبك سكدقا qodobka saddexaad aan tilmaamayno quraanku wuxuu tilmaamayaa hadday dadku mu'miniin dhaba noqdaan in ilaahay hiilkooda garab taagan yahay allahu waliyu aladiina aamanuu ilaahay baa u waliya oo muciin iyo nasiir u ah kuu gargaara noqonaya aladiina aamanuu rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu tilmaamayaa nebi meeshii loo diray intuu ka tegey dabeetana bad fuulay baddii doontuu fuulay laga tuuray xuutad ama nimiri weyl uu liqay kadibna nimiriga calooshiisii ka tasbiixsanayay oo lahaa laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin ilaahay wuxuu ina leeyahy fastajabnaa lahu wanajaynaahu min algham waanu ajiibnay baa alla leeyahy subxaana wa tacaala yeedhiisaasi waxaananu ka badbaadinay murugadii iyo warwarkii haystay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala
laga yaabaa inaad tidhaahdo de kaasi nebi buu ahaa rasuul alla soo dirtay buu ahaa dadkii qaadada ahaa ee ugu sarreeyey buu ahaa si aan warkaasi u iman aayadda ilaahay wuxuu ku gebagabeeyey wakadalika nunji lmu'miniin baa ilahay yidhi wakadalika sidaasoo kale ayaanu nunji lmu'miniin baa ilahay yidhi kuwa mu'miniintaana aanu u badbaadinaa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa dadku haddii iimaan iyo alla kacabsi rasmiya laga helo ka bulsho ahaan in ilaahay subxaana wa tacaala cirka iyo dhulkaba barakadooda u furayo walow anna ahla alqura aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala hadday rumayn lahaayeen dadka magaalooyinka degani iimaaniye haddii laga heli lahaa iyo alla kacabsi waxaan u furi lahaa baa ilaahay leeya barakada cirka iyo dhulka gaalada ilaahay wuxuu yidhi falamaa nasuu xada mima dukiruu bih markii ay ilaabeen wixii lagu waaniyey wax ka mid oo ay ka tageen diintii fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay baa ilahay yidhi albaab kasta waan u furay albaabka qoladan waxaa la yidhi albaabka barakada le oo qura loo furaya laakiin kuwan waxa weeyaan albaab walba waa loo furaya iyadoo lasii itixaamayo mid dhaqaale iyo mid shar iyo mid dulmi iyo albaab kasta waan furayaa baa ilaahay leeyahay xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum bagtatan faidaa hum mublisuun ilaahay ay kibraan baa rabbi yidhi waxaan siiyey ay ku kibraan dabeetana waxaan qabanayaa baa rabbi yidhi kadisaan ku qaban sawa iyagiyooba quustay iyaga wixii loo furaa waa abwaaba kullu shay baa ilaahay yidhi amaa dadka iimaan iyo alla kacabsi laga helo iyaga waxa loo furay abwaaba kullu shay maaha waxa sharka ah looma furayo ama tiknolojiyada iyo cilmiga dhibtoodu ku jirto lama siinayo waxa ilaahay siinayaa waa maxay waa barakaatin min alsamaa'i waalard cirka iyo dhulka wixii faa'iida iyo khayr ku jira wixii baraka leh ayaan u furayaabaa rabbi yidhi subxaana wa tacaala qur-aanka maanta aynu hayno rabbi wuxuu ku sheegayaa cizada iyo sharafta iyo mudnaanta walilaahi alciza walirasuulihi walilmu'miniin alle iyo rasuulkii iyo kuwa mu'miniinta alleh munaafiqiintana ilaahay wuxuu ku tilmaamay ma cizo iyo sharafti baa dad kale ka raadcaynaysaa idan mu'minku hadduu mu'min dhaba yahay waa casiiz waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamay colaadaha jira ee muslim iyo gaal laysu hayay iimaan dhabi jiro wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin waxaa korka yaga saaran baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala inaan u gargaaro oo u hiiliyo kuwa mu'miniinta ah innaa lanansuru rusulana waaladiina aamanuu fi lxayaati addunya ويوم يقوم الأشهاد يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إلهي وحلي هدي مؤمن دبا نقطان واندين هيلينيا بل القرآن كوحة المامية إن ربك الدفاع دوره إن الله يدافع عن الذين آمنوا إلهي بك الدفاع يدتك مؤمنين تا